بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد درسigani waa darsigii afaraad oo aan ka wadnay duruustii tixanaha aheeday ee kitaabkii alajrumiya waxaanu soo qaadanay oo aan soo dhammaynay baabulkalaami waxaan maanta insha allahu tacaala bilaabaynaa baabka labaad ee kitaabka baabulicraabi baabulicraabi waxaa looga hadlayaa saddex mas'alo mas'alada koowaad icraab maxaa la yidhaahdaa mas'alada labaad icraabka intuu galaa mas'alada saddexaad icraabka meeqa u qaybsamaa saddexdaa mas'alo ayaa baabka looga hadlayaa waxaan dhahnay baabulicraabi waxaa looga hadlayaa saddex mas'alo looga hadlayaa mas'alada koowaad icraab maxaa la yidhaahdaa mas'alada labaad icraabka xagow galaa mas'alada saddexaad icraabka meeqow u qaybsamaa saddexdaa mas'alo ayaa looga hadlayaa su-aasha koowaad oo ah icraab maxaa la yidhaahdaa jawaabdeedu waa icraab waxaa la yidhaahdaa sida sheikha uu sheegayba alicraabu huwa tagyiiru awaakhiri lkelim icraab waxaa la yidhaahdaa tagyiiru awaakhiri lkelim kelimadda aakhirkeeda oo isbedesho ayaa waxaa la yidhaahdaa icraab kelimad meel taallo sida tusaale ahaan kafuurun oo kale kafuurun waxay ka kooban tahay qoyn iyo fa iyo waaw iyo raa ra'da u dambayso waxaa saaran godaal baa saaran tanwiin baa saaranoo laba shaqal god ah ayaa saaran kafuurun soo maaha kafuurun ra'daas godka saaran inuu isbedelo oo marna la kor dhigo kafuuran la yidhaahdo marna la hoos dhigo kafuurin la yidhaahdo marna la godo sida hadda ay tahay oo kafuurun la yidhaahdo kaasa waxaa la yidhahdaa icraab kelimadda aakhirkeeda shaqalka saaran xarafka u dambeeyo oo isbedelo ayaa waxaa la yidhaahdaa icraab marna in la kor dhigo kelimadda aakhirkeeda marna la hoos dhigo kelimadda aakhirkeeda mar la godo mar la reebo kaasa waxaa loo yaqaanaa icraab kaasaa la yidhaahdaa marka haddii su-aashan lagu weydiiyo lagu yidhaahdo icraab maxaa la yidhaahdaa jawaabdeedu maxaan dhahaynaa icraab waxaa la yidhaahdaa kelimadda aakhirkeeda shaqalka saaran oo isbedela waxaa la yidhahdaa icraab sheikhana wuxuu yidhi alicraabu icraabku huwa icraabku tagyiiru awaakhiri lkelimi kelimadda aakhirkeeda shaqalka saaran oo isbedelo ayaa waxaa la yidhaahdaa icraab macnaha sheikha uu ku leeyahay tagyiiru awaakhiri lkelim kelimadda aakhirkeedo isbedesho macnaheedu ma aha xarafka u dambeeya isbedelaya ma aha oo hadda meesha kafuurun ra'da ahaa marna jiim naqayso marna xa naqayso loolama jeedo ee waxaa loola jeedaa kelimadda aakhirkeeda xarafka u dambeeyo shaqalka saaran waxa isbedelayo shaqalka wey oo marna la kor dhigaya marna la hoos dhigaya marna la godaya marna la reebaya isbedelkaas kelimadda aakhirkeeda shaqalka saaran ku dhacaya ayaa waxaa loo yaqaanaa icraab su-aal kala imaanayso ah sababta keenaysa kelimadda aakhirkeeda shaqalka saaran inuu isbedelo maxay tahay waxyaabaha keenaya kelimadda aakhirkeeda shaqalka saaran waxaa weeye cawaamisha kelimadda ku camal faleeda oo kelimaddan ka horeysa ayaa sababaysa yacni kelimaddan waxa ka horeeyo oo kelimaddan ku shaqaynayo ku camal falaayo ayaa sabab u ah kelimadda inay isbedesho aakhirkeeda tusaale ahaan kelimaddan haddii uu ka horeeyo caamil hoos dhig raba kelimadda waa la hoos dhigaya hadda uu ka horeeyo caamil kor dhig rabana kelimaddii waa la kor dhigaya hadda uu ka horeeyo kelimadda waxa reebana kelimaddii waa la reebaya marka kelimaddan aakhirkeeda inay isbedesho maxaa sabab u ah waxaa sabab u ah cawaamisha kelimaddan ka horeyso cawaamil maxaa la yidhaahdaa cawaamisha hal caamil baan soo qaadano baabkan baabkii ka horeeyo baabul kalaami ayaan kusoo qaadanay xuruuful khafdi isku geeyo waa caamil hoos dhig raba oo waxaan soo qaadanay xuruuful khafdi 12 xaraf wixii ay galaan waa la hoos dhigaya baan soo qaadanay waxaa kaloo jira xuruuf kale oo wax kor dhigta xuruuf wax hoos dhigta sidaad aan soo qaadanoo kale xuruuf wax reebta waxyaabaha marka kelimaddan ka hormaraya cawaamishaas u baahan marna kor dhig marna hoos dhig marna reeb marna god waxa u baahan yani sababta keensanaysa waa cawaamishaas waxaan dhahnay
kelimadan aakhirkeeda inay isbedesho waxaa sababaya kelimada waxa ka horeeyo ee caamil ah ayaa sababaya. cawaamishan kelimada ka horeyso caamilkan kelimadan ka horeeyo hadduu hoos dhig u baahan yahay sida xuruufulkhafdi oo kale, xuruufta hoos dhigta oo kale, kelimada aakhirkeeda waa la hoos dhigaya. haddii kelimadan waxa ka horeeyo ay yihiin wax kordhig u baahan, kelimadii waa la kordhigaya. haddii kelimadan waxa ka horeeyo ay yihiin wax reeb u baahan, kelimada aakhirkeeda waa la reebaya. haddii kelimadan waxa ka horeeyo u baahan yihiin godna, kelimada waa la godaya. hadba kelimadan waxa ka horeeyo ayaa ku camal falaya kelimadan aakhirkeeda. marka sheekhu wuxuu dhahay liikhtilaafi alcawaamil addaakhilati calayhi lafdan aw taqdiiran. kelimadan in la hoos dhigo oo aakhirkeeda uu isbedelo waxaa sababaya liikhtilaafi alcawaamili, cawaamisha isbedelkeeda, cawaamishii addaakhilati ee gelaysay calayha kelimadan korkeeda gelaysay lafdan dhawaaq ahaan aw taqdiiran ama qadar ahaan niyeysi. caamilkan waa caamil lagu dhawaaqi karo amba waa caamil la niyeysanayo ee kelimada ka horeeyo. caamilkaasu amba ha lagu dhawaaqo ama yaan lagu dhawaaqine, isbedelkaas cawaamisha isbedelayso oo kelimada ka horeeyo ayaa sabab u ah kelimadan aakhirkeeda in ay isbedesho. marka sheekhu wuxuu dhahay alicraabu, icraabku huwa icraabku tagyiiru awaakhiri lkelimi, kelimada awaakhirkeeda iyo aakhirkeeda oo isbedesho ayaa waxaa loo yaqaanaa icraab. maxay isla bedele? liikhtilaafi alcawaamili, cawaamisha isbedelkeeda, cawaamishii addaakhilati ee gelaysay calayha kelimada korkeeda lafdan dhawaaq ahaan u gelayday aw taqdiiran amba niyeysi u gelayday. isku soo duubo, waxaan maanta qaadanay su-aashii koobaad jawaabdeedii. su-aasha koowaad maxay ahaaday? icraab maxaa la yidhaahdaa? icraab waxaa la yidhaahdaa kelimada aakhirkeeda meesha u dambaydo oo isbedesho ayaa icraab la yidhaahdaa, oo marna kordhig naqata, marna hoos dhig naqata, marna reeb naqata, marna god naqata. isbedelkaas kelimada aakhirkeeda ku dhacaya ayaa icraab la yidhaahdaa. oo kelimadan aakhirkeeda maxay isla bedelaysa u yidhahdana, kelimadan aakhirkeedu waxay isla bedelaysaa waxa kelimadan ka horeeyo oo marna hoos dhig u baahan, marna kordhig u baahan. hadba waxa ka horeeyo ayaa kelimada aakhirkeeda ku camal falaayo. intaasay noo joogo insha allahu tacaala. wallahu aclam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.